السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هوانيدن waxay sheegtay inay tahay haweeneyda aada kontoneeyaha ku jirta. waxay tiri guurar badan baa iga burburay intii dambana qof aanu isfahano waan waayay bay tiri oo aanu iskuursano ragga aan guurka u soo bandhigtay ee aan guurka isla gaadhnayna waxaan ka dhaxarkay bay tiri inay iyagu interestiga leeyihiin oo ay doonayaan inaan istabaro oo marka iyagu marka ay leeyihiin qof weyn baatay adigu ismaamul oo biilkaaga iyo noloshaada iyo waxaaga adigu isku dabaro annagu kaliya raganimu baan kula imanaynaa laakiin maadaama oo qof tarmaysa aanad ahayn oo xilligii taranka aad ka baxday ama xilligii dhalmada aad ka baxday aanan annagu waxaba yaraatay aanad waxba noo dhalaynin haddii aad nin u baahan tahay waa inaad adigu qarashaadkaaga aad la baxdaan arrintaana culays bay igu noqotay oo waxay tiri ma wada awoodo ama ma tahli kara inaan reerka oo dhan anigu aan maamulo kadibna guurkii sidaas ayaan faraha kaga qaaday waxaana la igu diidayaa bay tiri waa daadaas igu timi kadib waxaan sameeyaa bay tiri imika ficilka foosha xun ee siigada ayaa shaydaanku ii qurxiyay aan ku dhacaa bay tiri aniga oo daadaas waa ogahay bay tiri inay qalad tahay inay dhibaato tahay inay caafimaad xumo tahay laakiin shahwadayda iyo dareenkayga ayaan arrintaa iskaga dhimaa markaas waxaan sameeyaa bay tiri arrintaas marka aan ku dhaco inaan markaas aan aad uga warwaro oo aan go'aan ka qaatay inaan joojiyo markaa wixii inay dhibaato tahay oo aad looga hadlay waan ogahay laakiin waxa igu adag waa go'aan qaadashadii ee maxaad igula talin lahayd bay tiri haddaynu ku soo dhowaano tala bixinteeda marka koobaan qofku marka uu dhalinyarta yahay xumaanta uu ku dhaco iyo marka uu weyn yahay xumaanta uu sameeyaa way kala khatar badantay oo aad iyo aad bay u kala khatar badantay dadka cadaabta ku dhacayana waxa ka mid ah ee rasuulku sallallahu alayhi wa sallam inoo tilmaamay ashiikhu saani qof weyn oo sinaystay marka culimadu markay arrintaa tafsiirka ay ka bixinayaan marka wax shahwa oo qofka weyn gubaysa inaanay jirin bay tilmaamaan culimadu kadibna isagoo aan shahwo gubaysaa jirin oo daadiisa ay weyday haddana sinayso sina ku dhacay marka qofku marka uu weyn yahay ee uu daadiisu weynaato macsida uu sameeyo ama xumaanta uu sameeyaa way ka culays badan tahay xilliga uu dhalinyarta ku jiro marka uu ku dhaco oo xataa waxaynu aragnay marka qofka dhalinyarta ahi sinaysto iyo marka qofka guurka soo maray uu sinaysto xukunka sida ay ugu kala bedelan yihiin markaynu intaa ka nimaadno adiga oo qof weyna da'dan imika aad ku jirto xagga caafimaadka marka laga eego haweenku xilligaas shahwadu way ka yaraadaa dareenkuna uu ka yaraadaa sabab badan oo shahwadaada iyo dareenkaaga aad ugu jabiso meel fool xun oo siiga iyo ficil fool xun oo faaxisho aad u samayso ma jirto shahwadu weyn oo ku kubaysaana ma jirto markaas waad kantarooli kartaa wixii dareena ee jirkaaga ku samaysmo ama iyo waxyaabaha kugu kalifaya in dareenkaasi uu yimaadaba waad kantarooli kartaa markaa go'aanka aad qaadanayso ayuu baynu doonaynaa insha allah inaynu sidii adigu ugu fiican ee go'aankaasi uu kugu fulayo aynu tilmaamno waxa lagaga baahan yahay 4 tallaabo inaad samayso marka koobaan inaad ku dadaasho cibaadada salaada soonka iyo sunnayaasha arrinta kale runtii iyadana markaas shelter kaaga noqon karta ama protectionka ku sameyn karta waxa ay tahay inaad samayso inaad ka fogaato cilada oo aad ismashquuliso arrinta kale ee iyadana ku caawinaysa waxa ay tahay inaad joojiso xidhiidhada iyo shukaansiga aan manfaca ku lahayn ee dareenkaaga laga yaabo inay wax ka bedelaan arrinta kale ee iyadana aadka ku caawinaysa waxay tahay
inaad maskaxdaada aad biisi garayso ama maskaxdaada inaad ka saarto waxyaabaha stimulanceska keenaya ee dareenkaaga kicinaya arrinta ugu dambaysan haddii guur xalaal adigu aad awoodo oo jeebkaaga aad ka awoodo oo markaas adigu aad ninkaad guursato aad markaa noloshiisa aad kafaalo qaadan karto si xumaantan iyo faaxishkan iyo waxan aad uga sii fogaato waad samayn kartaa oo haweenaydu haddii ay dhaqaale haysato oo ay ninku guursato oo xumaan iyo macsi iyo inay waxyaabaha ku dhacdo darteed iyadoo uga fogaanaysa ay sidaa u guursato wax dhibaato ah kuma jiraan bal waaba arrin wanaagsan intaas ayaan kugu soo ururinayaa. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.